الله أكبر. إنا لله وإنا إليه راجعون. الله أن حريسته وحا حبالها قور دير لغو آسي مرحومة جوارية محمد إبراهيم سبعس أو كمدا هيد قولها حلبان دي دولة ديغان كصومالي دا أهيد نحبين كمدا قولها دحي حسب برواقو أو شلي قلب أو كدلي مد كمدا أسكرتي لالدا إقرون كديار دا هي جيجيغا madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Maxamed Umar madaxweyne ku-xigeenka mudane Ibrahim Usmaan Faarax mas'uuliyiinta deegaanka iyo qaybaha kala duwan ee bulshada caasimadda ayaa ka qayb galay aaska marxumadda Allah u naxariiste. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Kullu nafsin daaqiqatul mawt. Waxaan hadda joognaa qabrigii marxumad xildhibaan Juwariya subcis oo shalay ku baxday gacan ka xaq daran askari ciidanka ilaalada airportka oo toogtay awgeed maarta u nafbaxday si shalay baan uga tacsiyeynay shacabka deegaanka sida xoogga la murugada u muujiyay ayaan ka midnahay waan runtii aad iyo aad uga xanuunsanay geerida naxdinta la kusoo boodada iyadoo geeri loo wada joogo haddana qaabka foosha xun gardarrada ah iyo arxandarrada oo dhimatay runtii aad iyo aad wax looga argagaxay weeyaan waan garanaynaa dareenka falcelinta shacabka ka yimid inuu yahay mid ka duulaya qaabkaas foosha xun iyo dhibka qaabka uu dhacay marka ugu horeysa waxaan leenahay ilaahay naxariistii jannada ka waraabiyo marxuumad Juwariya eheladii iyo qaraabadii iyo intii ay ka tagtay iyo shacabkii deegaanka Soomaalida ee sida hagarlaanta ugu adeegaysana dhammaantood ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo iyadana qabriga ilaahay ha waasiyo marka xiga waxaan aad iyo aad ula xanuunsanaynaa shacabka guweyn ka cadhooday dhibtaas dhacday waxaan mas'uuliyad naga saaran tahay inaan xaqiijino in arrinta baaritaankeeda meel kasta oo ay nala gasho la wado waxaa alxamdulilah in gacan ku dhiglihii gacanta lagu hayo ciidanka amniga iyo hay'adaha cadaaladda ee deegaankuna ay gacanta ku hayaan iyadoo sharciga nidaamkiisa la marayana la waafajin doono ciqaabta ugu sarreysa ee uu mudan yahay oo annaga xukuumad ahaan aan aaminsanahay in ninkaas muxuu ahay xukun dil toogashaa lagu xukumo aan aaminsanahay laakiin sharcigu hadhow marka uu maro in qawaaniintii iyo sharcigii ay ka soo baxdo aan jecelahay falkaas dhacay wuxuu argagax ku riday shacabka oo dhan gaar ahaan wuu ka dhacay meel aad iyo aad xasaasi oo garoon diyaaradeeda iyo caasimaddii waxaan shacabka u sheegaynaa in dadaal lala hadhayaa ayna jirin in la soxo waxyaalaha arrimaha keenay haddii ay tahay inaan ciidamo Soomaali ku hadla inay airportka joogin oo kale iyo hadday tahayba inkastoo haddaba airportka dad ka shaqeeya Soomaali lagu daray haddana ciidanka federaalka oo kale maadaama mas'uuliyad iyo sharciyad iyagu ay u leeyihiin garoomada iyo jaamacadaha iyo meelaha qaarkood oo sharci lagu kala qaybsaday inaan wiilasheenuba ay federaalka ciidankaas galaan oo ay qayb ka ahaadaan yani doodaha laga saaro meeshan ciidamada federaalku dood la socota waaqaca deegaan iyo dalka iyo sharciga waddanka jira maaha laakiin iyadoo sharciga waddanka loo hoggaansamayo sidee Soomaali u geli kartaa airportdadan iyo dhulkan in la yidhahdo qaabka loo fikro waa daruuri waana muhiim waana dareenkaa shacabkana waa la qabnaa marxuumad Juwariya waxay ahayd xildhibaanad runtii intii aan xildhibaanka noqon ka hor aad iyo aad loo yaqaanay oo shaqooyin fara badan hay'adii u shaqeynaysay ee awsiyo shaqooyin kale oo haysaba runtii dadka u heelan inay wax nafteeda dhaafsan ka shaqeyso ayay ahayd waxaa markhaati ka ah hadda intii xitaa hadda ay soo gashay siyaasadda xisbiga iyo dowladdii ay soo gashay hawlo waaweyn oo dadka xutalaya qabanaysa baa jira waxaa ugu horeeya iskuul hadda ay gacanta ku haysay oo iskuul caalami oo magaalada ay ka sameynayso runtii aad iyo aad u bedeli lahaa heerka waxbarashada ee deegaanka gacanta ku haysay qof ballaaran oo muxuu ahay dad fara badan iyo asxaab fara badan yale oo shaqo u heelan bay mar walba dooditaanka xuquuqaha dadka Soomaaliyeedna runtii aan ka gabanin oo mar walba la soo istaagta fagaaro walba iyo meel walba in dhibaatooyinka shacabka Soomaalida soo gaara ama waxyaalaha meelaha qaarkood gacan bixinta tooshka ku fiya ahayd marka xubin weyn oo cod u ahaa shacabkeena ayaan weynay aad iyo aad ayaan maaragtay nagu ducaynaynaa waxaan samayn doonaa wax walba oo kaalintanada naga saaran in
eeladii iyo qoyskii iyo ciddii ay ka tagtay iyo shaqooyinka ay ka tagtay qabyadaha dhammaystirkoodii iyo hagaajinteedii inaan ku muujinno jacaylka aan u qabno walaashay naga dheelmatay inaan si dhaba uga mari dhalino yaa nala quman waxaa kaloo halkan iyagana uga tacsiyeynaya dadka dhaawacmay oo uu ku jiro xildhibaan injineer cabdirashiid cumar haaguf oo isaga iyo walaashiiba ay ku jiraan qofka kale dhaawacma waa jawariya walaasheed iyaduna iyo dhowr qof oo kale oo dhaawacmay baa jira inta ugu culus waa intaa iyagana injineerka iyo ehelada iyo cidda kale ee dhaawacantay waxaan leenahay ilaahay caafimaad degdeg ha idin siiyo sidii shalayba markii aan soo booqanay aan ballan qaadnayna meel walba oo caafimaadkoodu uu galo xukuumaddu ay garab taagan tahay waana ka caawinayna eheladii iyo qaraabadiina arrintaa waan la socodsiinay falkaa dhacay in xukuumaddu ay garab u noqoto oo ay mida ka tirto mas-uuliyad ka saaran weeyaan intaa marka laga tago waxaan shacabka codsanayaa in ay iyagoo xaqooda inay dareenkooda muujiyaan haddana waxyaalaha dowladnimada inaga duminaya waxyaalaha fawdada keenaya in laga fogaado bahda saxaafadda dhalinyarta social mediaha iyo cid waliba waa inay qawaaniinta iyo xeerdaafka xayndaafka sharciga ayna ka tallaabsan oo waxay iyagu jecel yihiin ayna damcin bulshada lagu maamulo bulshada sharciga isku maamushaa marka doodaha qaarkood dadka lagu dhex tuurayo in cid walba si ay uga faa'iideysan karto in la ogaado weeyaan gacan ku dhiglihid gacanta lagu hayaa sharcigu maraya ma xusuusto xilli hadda ka horreysay oo gacan ku dhiglo hay-adaha amniga ee hadda maanta falka geystay ah oo soomaali gacanteeda loo soo geliyo ma xusuustaan intaan garanayo ama gacanta ay ku hayaan mararka qaarkood xilliyadii dhargii way dhacday laakiin hal dhacdo ay ahayd oo markaana yani jawaabtii laga bixiyey tanna insha allah laga bixin doonaa laakiin in muxuu ahaay qaab fawda iyo qaab ujeeddo badan loo dhex galo oo nidaamkii lagu carqaladiya sax maaha arrimaha noocaasana in laga waantoobo oo aan dhiigga walaashayn oo ahayd qof ka shaqaynaysa dowladnimada deegaanka aan loo adeegsan in wixii ay u taagneyd waxay ka shaqaynaysa lagu dumiyo inaan loo adeegsano way nala quman tahay doodaha qaarkoodna iyagoo lamid qabo marka aynu ka baxno xaaladda hadda aynu ku jirno in dabagal lagu sameeyo arrimihii sharciga nir waa la marinayaa inaan eegno arrimo la xidhiidha ujeeddadii waxaan u dhaceen iyo sababta ku dhacday iyo kuwa in hoos loo eego cabashooyin kale oo la xidhiidha habdhaqanka guud ahaan hay-adaha amniga hadday jiraan in hoos loo eego waa loo baahan yahay waanan samaynayna xukuumadaan waxaan shacabka mar kale leeyahay ilaahay samiriiban naga siiyo gabadheennii sidaa aan ballan qaadnina waxaan xaqiijin doonaa in cadaalad ay hesho oo gacan ku dhiiglihii iyo ciddii kale ee lug ku yeelata arrintaas ciqaabta ugu sarraysa la mariyo waad mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu marxumadda allaha u naxariista ayaa ifka kaga tagtay 2 carruur ah oo ay da'doodu kala yihiin 7 iyo 10 iyo 5 jir sida eheladooda oo nooga warramaya taariikh nololeedkeeda ay noogu sheegeen aniga waxaa la yidhaahdaa cali axmed ibraahim adeer baan u ahay gabadha waxay ku dhalatay hargeysa marka kadibna markii la soo qaxay hargeysa laga soo qaxayo oo ciyaal yar yar ah waxay soo degeen meesha la yiraahdo Wardheer kadib bay haddana waxay u soo gudbeen meesha la yiraahdo Harar dugsigeeda hoose halkaas ka bilowday ilaa dugsi sare halkaas ku dhamaysay kadibna jaamacadaha la xiriiday oo maaragtay waxay ka qaadatay degree jaamacadda Jigjiga waxay kale ka qaadatay masterteedii bay ka qaadatay waxa kale oo maaragtay tababar badan oo u gashay waxbarasho xitaa Mareykanka way u tagtay koorsooyin badan bay gashay heerkeeda aqooneed saas uu ahaa waxay soo qabatay maaragtay xilal badan oo ay ka mid yihiin hay'adaha iyo qaabka looga shaqeeyo waxay ahayd ruux aad takhasus ugu leh bay ahayd Jawaariye Sucis waxay maaragtay ku dhashay adduunka 2 wiilkeeda oo 18 jir inuu yahay hadda ka u roon 17 meelahaas iyo wiil aan u malaynayo inuu 5 jir yahay labadaa wiil bay adduunka kaga tagtay waxaa dishay gacan ka xaq daran ilaahay baana subxaanahu wa tacaala uga baryaynaa naxariista janna inuu ka waraabiyo lillahi wa inna ilayhi raaji'uun allahumma ajirna fi musibatina hadhihi wa akhlifna khayran minha ilaahay ha u naxariisto Jawaariya gacan ka xaq daran baa dishay ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu jannatul firdaws la geeyo haddii aan nahay odayaashii iyo ama Soomaaliyeed gaar ahaan odayaashii gobolka Doolo iyo dadka deegaanka ay ka soo jeeday waxaanu u tacsiyeynaynaa ehelkii dawladdii oo ay xubin ka ahayd hadday tahay dawladda xildhibaanayo iyo haddii ay tahay
xisbiga talada dalka haya waan uga tacsiinaynaa shacabka Soomaaliyeed iyo dawladda iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee runtii ka dhidhiday oo waxa way shucuurteedii iyo dareenkeedii ku muujisay sida ay uga xun yihiin falkaas gardarrada ahaa oo lagu kacay gabadha xildhibaanada ah waxaan leenahay dawladda aan leenahay waxaan u baahanahay cidii dhibaatada geysatay xadgudubka geysatay jariimada dilka geysatay in wixii ay abaal u lahayd oo ay Jawaariya marta iyadina la mariyo iyada oo aan ka boodsanayn qaanuunka dalka iyo shucuubta Itoobiya labadaba haddana waxaan u baahanahay wixii ay waajib xaq u lahayd gabadhaas in la mariyo